jimca mubaarak saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo kuna soo dhowaada barnaamijkeennii maanta iyo ciyaaraha oo aan ku soo qaadan doonno qodobo aad u xiiso badan sida xaalka Neymar oo weli dhinacan u dhicin kooxda PSG oo ogolaatay dalabka kooxda Barcelona xaaladiisa uu ku dhow heer gabagaba ah Real Madrid oo dhankeedana wararka ay tilmaamayaan in ay ku dhowdahay in ay ku garaacdo Barcelona saxiixa Neymar dhinaca kale maxaa ka jira wararka sheegaya in gabi ahaanba PSG ay tababarka ka saartay Neymar Jr agaasimaha isboortiga ee kooxda PSG oo ka jawaabay talow muxuu yiri barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan waa kuma xidiga 3 koob ku guuleystay 3 bilood gudahooda isla markaana uu ciyaara kooxda Liverpool sidoo kale barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa maxay tahay sirta ka dambaysa Harry Maguire oo ay u ballan qaaday mushaar ka badan midka ay siinayso Manchester United in gabi ahaanba City uu diido kula biiro kooxda Manchester United Matthias Pogba oo ku dhiirigeliyay walaalkiisa Paul Pogba in uu ku biiro kooxda Real Madrid qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad like saarto muuqaalkan sidoo kale share garay oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid halkani waa Tollito channel ugu horeyn aynu ku hormarnay xagaday xaalka Neymar wali waa mid aan jiha lahayn marka loo fiiriyo suuqa xagaygan waana midka ugu hadalhaynta badan qaarada Yurub waqti xaadirka kan wararka waxay tilmaamayaan in kooxaha Barcelona iyo PSG gabi ahaanba ay u muuqdaan in kooxda PSG ay aqbashay dalabkii ay soo hordhigtay kooxda Barcelona kooxda caasimada ayaa doonaysa in ugu yaraan ay hesho dhaqaale u dhigma midkii 2 sano ka hor ay ku bixiyeen laacibka reer Brazil ee Neymar Jr sidaas darteed 100 milyan iyo 2 ciyaartooy oo waliba ay xulanayaan ayay u arkaan heshiis aad u fiican isla markaana ay ku iloobi karaan laacibka reer Brazil ee lagu magacaabo Neymar Jr warka ayaa sheegaya in PSG ay kala dooranayso Philippe Coutinho oo 27 jir ah Ousmane Dembélé oo 22 jir ah Nelson Semedo oo 25 jir ah balse gabi ahaanba sheekadaasi meesha waa ay ka saareen oo waxay u baahan yihiin waqti xaadirka kan 100 milyan oo lagu mataaneeyay Rakitic iyo Philippe Coutinho taasi oo u muuqata waqti xaadirka kan in wax waliba ay noqdeen wax la isku fahmay sida ay sheegtay jariirada La Coupe ee ka soo baxda ariga Faransiiska geesta kalena wararka waxay noo sheegayaan kooxda Real Madrid ayaa haatan waxay ku dhowdahay in Barcelona ay ku garaacdo saxiixa xidiga Neymar Jr inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xagaygan si ay ugu xoojiyaan kooxdooda waxaana ay u baahan yihiin bedelka laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo wargeyska Sporti ayaana sheegaya in madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez uu helay lacag uu ku dhameystiro heshiiska Neymar Barce ayaana haatan wuxuu diyaar u yahay in uu dhaqaaqo qorshe waliba uu ku soo xirigeli karo Neymar Jr oo bartilmaameed u ah kooxda Real Madrid sidoo kale da'yarka Real Madrid ee lagu magacaabo Vinicius Jr ayaa lagu soo waramayaa in go'aan uu ka gaaray mustaqbalkiisa ee ku aadan in la xiriiriyo kooxda PSG oo doonaysa in Real Madrid ay qayb kaga dhigto heshiiska Neymar ugu dhaqaaqayo garoonka Santiago Bernabeu Vinicius Jr ayaa kaliya hal xilli ciyaareed wuxuu ka qaatay caasimada Spain ee Madrid wuxuuna ka mid ahaa xidigaha ugu wanaagsan ee sida wacan ugu soo dhaxdhalaalay shaxda kooxda Real Madrid ee xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday laakiin haatan wargeyska SBN ayaa sheegaya in Vinicius Jr isaga uu gaaray go'aankiisa shakhsiga ah isla markaana uu go'aansaday in uu sii joogo kooxda Real Madrid isla markaana uu doonayo in uu ka qayb qaato saf kooxeedka macallim Sanadin Yasin Zidane oo dhinac kasteetaba waa iska qashay labanay wali sheekada Neymar karago 2 saar xalay waxa la isla dhaxmarayay war sheegayay in kooxda PSG gabi ahaanba tababarka ay ka ganaaxday in uu ka qayb noqdo laacibka reer Brazil ee lagu magacaabo Neymar Jr laakiin arintaasi waxa ka hadlay agaasimaha isboortiga ee kooxda PSG ee lagu magacaabo Leonardo waxaana uu yiri waa been abuur lagama saarin kooxda waxa uu samaynayaa tababar u gooni ah dhaawac ayuu ka soo kabanayaa waa ciyaaryahan Paris Saint-Germain ah 3 sanadood ayaa ugu hirtay qandaraaskiisa kooxda Paris waa qasab in aysan taasi iloobin ayuu yiri
dadka mala awaalaya in kooxda Paris Saint-Germain iyo Neymar waqti xaadirka kan uu ka dhaxeeyo khilaaf weyn isla markaana gabi ahaanba laga saaray tababarkii kooxda PSG. sidoo kale difaaca ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta ee Harry Maguire ayaa jiriirada caanka ah ee lagu magacaabo Daily Express waxa ay soo saartay xog dahsoon oo ku qotantay isaga. maxay ahayd sababta ka dambaysa in uu diido in uu ku biiro kooxda Manchester City oo aad u doonaysay xitaa u soo bandhigtay adduun lacageed gaaraya 278,000 oo gani in toddobaadkii uu qaato isla markaana uu doorto United oo haatan siinaysa 190,000 oo gani. wargeyska reer England ayaana sheegay in sirta ka dambaysa arrintaasi ay tahay in Harry Maguire mar waliba uu jeclaa in uu ciyaaro kooxda lagu naanayso siyaadintu cascas ee Red Devils. taasi ayaana sababtay in gabi ahaanba uu iska diido Manchester City kuna biiro Manchester United. aabaha Harry Maguire ayaana sheegay in markasta Maguire uu ku riyoon jiray in mar uu xirto maliyada kooxda Manchester United waana ay dhacday waliba isaga oo noqday difaaca ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta. haatanna waa mid ka mid ah xidigaha ay ku duulaan tagayso kooxda Manchester United. wararka waxay intaasi ay ku sii darayaan Matthias Pogba oo ah walaalka la dhashay xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa ka hadlay suurtagalnimada uu walaalkiis kaga dhaqaaqi karo kooxda Red Devils xagaygan. isagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kalena waxa uu yiri Pogba waxa uu doonayaa in uu dhaqaaqo suuqa xagaygan laakiin wax waliba ma samayn karo haddii uusan sidaani haysan wax waliba uu u baahan yahay xilli ciyaareedka cusub. xaaladdu way ku adkaan doontaa isaga. waxaan u malaynayaa in uu seegayo saxiixa Pogba. suurtagal ma ahan in Florentino Perez uu ku guulaysto heshiiska walaalkay mana xaqiijin kartid in uu sii joogayo United-ka ilaa iyo dhamaadka suuqa 2 September. wax waliba ayaa ka dhici kara masiirka Paul Pogba ayuu yiri Matthias Pogba oo ku dhiirigeliyay walaalkiis in uu ka mid noqdo kooxda Real Madrid. laakiin Manchester United ayaa gabi ahaanba ka dhaga adeegaysa dhaqdhaqaaq kasta oo ay samayso kooxda Los Blancos ee ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid. sidoo kale laacibka lagu magacaabo Roberto Firmino ayaa weli halkiisii wax uu ka sii wadaa taariikhiisa rekorada ka gadaal markii 3 bilood gudahooda uu ku guulaystay ilaa iyo 3 koob oo kala duwan. Liverpool waxa uu la qaaday tartanka caanka ah ee lagu magacaabo Champions League. sidoo kale UEFA Super Cup ay ka faramaroojisteen Chelsea oo joogtay magaalada Istanbul iyo cariga Turkiga. si lamida waxa uu ku guulaystay koobkii lagu dhigay cariga Brazil ee Copa America. sidaas darteedna muddo 3 bilood gudahooda ayuu ku guulaystay ilaa iyo 3 koob. ilaan wiilka waaba fantastic. ugu dambeyntii garoonka San Mamés ayaa habeenku caawa wuxuu martiqaadi doonaa kulanka furitaanka horyaalka La Liga Spain kaasi oo si weyn ay u sugayaan jamaahiirta kubadda cagta oo dhan. halkaasi oo ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Atletico Bilbao iyo si lamida kooxda Barcelona oo difaacatay xilli ciyaareedkii hore horyaalnimada La Liga Spain ayaana laga sugayaa habeenku caawa in mar kale ay dhowrato sharafteeda isla markaana aysan iska wasaqayn. sidoo kale waxa il gooni ah lagu hayaa in uu ismuujiyo laacibka reer France ee lagu magacaabo Antonio Griezmann kaasi oo dhawaangal ku ah kooxda Barcelona. halka ciyaartan uu dhaawac uu ku seegi doono laacibka reer Argentina ee Lionel Messi. sidoo kale xidigaha shakiga laga gelinayo kooxda Barcelona waxa qayb ka ah Arthur Musa Golhayanito iyo waliba Arturo Vidal. ciyaartu ayaa soo dhici doonta 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika iyadoona lagu ciyaari doono garoonka San Mamés. kooxda martida loo yahay ee Atletico Bilbao ayaa iyagana waxa shaki laga gelinayaa in ciyaartan aysan qayb ka noqon karin xidigaha kala ah Gorka, Inigo Martinez, Inigo Gardoba, Ibia Gomes. xidigahaasi ayaana la isleeyahay waa ay ka maqnaan karaan kooxda Atletico Bilbao oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan horyaalka La Liga Spain. kooxda Barcelona ayaana ciyaari doonta markii ugu horeysay tan iyo 2009 iyadoo Messi la'aan ah. lambarteen ka qabsaday dunida kubadda cagta ayaana dhaawac kubka ah ku seegaya ciyaartan. waqtigaasina waxa kooxda Barcelona hogaaminayay macallimka haatan ee kooxda Manchester City Pep Guardiola. xaqiiqooyinka ugu muhiimsan ciyaartan ee aad u daawan doontana waxa qayb ka ah labadii kulan ee labadan kooxood horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii hore ay ciyaareen
waxay ku dhammaadeen barbaro iyadoo kulankii hore ee ka dhacay garoonka weyn ee lagu magacaabo Camp Nou labada kooxood ay ku ballameen barbardhac gool iyo gool ah ka hor inta aysan ku kulmin garoonka caanka ah ee lagu magacaabo San Mamés oo labada kooxood waxay ku heshiiyeen barbardhac goola la'aan ah sidaasi darteed Barcelona waa muhiim in ciyaartan ay ku furato guul oo maxaa yeelay xilli ciyaareedkii hore waxay noqdeen ku guuleystayaasha horyaalka La Liga Spain Barcelona ayaa badisay 4 ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeysay oo ay u safartay San Mamés kulamada horyaalka markii ugu dambeysay oo Atletico Bilbao ay guuldaro kala kulantay kooxda Barcelona waxay ahayd sanadkii 2013 Atletico Bilbao ayaa kaliya badisay hal kulan 14 kulan oo Barcelona ay ku marti qaaday garoonkeeda taasi oo la micno ah in kooxda Barcelona dhan kastaba ay kaga awood badan tahay kooxda Atletico Bilbao marka la joogo garoonkeeda San Mamés si kastaba la arki doonee habeenku caawa iyo waxa ka dhaca halkaasi maadaama uu yahay tartanka bilow waana mid dadka dhan ay aad u wada sugayaan